Cristiano Ronaldo oo shaaciyay sirta ka dambaysa dhismaha jirkiisa. Cristiano Ronaldo ayaa la sheegay inuu cunno aan caadi ahayn oo ka timid jikada hooyadiis u isticmaalo inuu ku sii jiro qaab ciyaareed heer sare ah xitaa isagoo jira 40 sano. Xiddiga reer Portugal ayaa weli ah ciyaaryahan muhiim ah oo ka tirsan kooxda Al Nassr isagoo sii wata bandhigiisa cajiibka ah ee horyaalka Sacuudiga isla markaana ku rajo weyn inuu ka qayb galo koobka adduunka ee FIFA 2026 isagoo jira 41 sano. Intii uu ku jira xirfadiisa la yaabka leh, Ronaldo wuxuu ku guuleystay 33 koob oo waaweyn oo ay ku jiraan 5 Ballon d'Or iyo 5 koob oo Champions League ah, taasoo muujinaysa sida ay uga go'an tahay inuu ku sii jiro heerka ugu sareeya ee kubadda cagta. Ronaldo waxaa si weyn loo yaqaanaa inuu leeyahay xaalad jireed oo cajiib ah isagoo marar badan soo bandhigay muruqyo adag iyo jir dhisan. Dadaalkiisa joogtada ah ee caafimaadka iyo fayoobida ayaa door weyn ka ciyaaray cimrigiisa dheer ee garoomada. Hase yeeshee hadda waxaa la ogaaday xulasho cunno oo aan caadi ahayn oo qayb ka ah istaraatiijiyadiisa uu ku sii jiro xaalad wanaagsan. Ronaldo wuxuu caan ku yahay inuu raaco jadwal cunno isagoo ka fogaada cunnooyinka la warshadeeyay sida sokorta xad dhaafka ah iyo khamriga, halka uu mudnaanta siiyo cunnooyinka borotiinka sare leh. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Daily Mail, mid ka mid ah cunnooyinkiisa aan la filayn ayaa door muhiim ah ka ciyaara caafimaadkiisa. Bacalhau Boras oo ah cunno dhaqameed reer Portugal ah oo laga sameeyo kalluunka cusbaysan, basal, baradho dhuuban oo la jarjaray iyo ukun la jajabiyey. Cunnadan waxay ahayd mid ku weyn Ronaldo tan iyo carruurnimadiisii, waxaana markii ugu horeysay u karin jirtay hooyadiis iyadoo isticmaalaysa qorshe qoyska u gaar ah. Cunnadan ayaa loo yaqaanaa mid si fudud loo sameeyo iyadoo bixisa isku dar borotiino iyo dufan caafimaad leh oo taageera tababarkiisa culus.